garoomadii kubadda cagta dhista ee meeye cisbitaaladii weedhani waxay maalmahan caan ka noqotay gudaha dalka Morocco ee ku yaal waqooyiga Afrika. Jiilka daayarka ah ee wadanka ama jinsiga dalkan ayaa wada dibadbaxyadii ugu waaweynaa kuwa oo ka caraysan dowladda wadankan oo dhaqaale badan ku bixinaysa dhismaha iyo dib u habeynta garoomada kubadda cagta ee la doonayo in dalkani sanadka 2030 ku martigeliyo koobka kubadda cagta adduunka ee ay wada martiqaadi doonaan dalalka Morocco, Portugal iyo Spain. dhalinyarada dibadbaxaysa waxay si weyn uga cabanayaan hooseynta adeegyada asaasiga ah ee wadanka iyo dhaqaale xumada ka sii daraysa ee Morocco, waxaana ay doodoodu tahay in dawladdu nolosha dadka iyo kobcinta dhaqaalaha ka hormariso kharashka tirobeelka ah ee ay ku bixinayso isu diyaarinta koob-madadaaleedka dhici doona 5 sano kadib. Mid ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa warbaahinta u sheegay in dhowaan uu waalidkiis cisbitaal geeyay, balse ay ku khasbanaadeen inay waardiyaha cisbitaalka iyo kalkaalisooyinka laalushaan si ay dhakhtar ula kulmaan, taas oo tustay heerka adeeg hooseynta iyo nidaam xumada cisbitaalada wadanka. Tan ayaana mudan in wax looga qabto lacagta garoomada lagu dhisayo ayay leeyihiin daayarta maamul xumada dalkooda ka caraysan. Labo ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa dhintay Arbacadii kadib markii booliisku rasaas ku fureen, taas oo ay sheegeen inay isaga caabinayeen dhalinyarada dibadbaxaysa oo hujuumay xarun booliis oo ku taal magaalada Qila sida ay sheegeen. halka in ka badan 400 oo dibadbaxayaasha ka mid ah dawladdu sheegtay inay u xirtay qalalaasahan musuqa iyo dhaqaale xumada looga soo horjeedo, tan oo u muuqata inay uga sii dari doonto kacdoonka dhalinyaradan. Inkastoo dawladda Morocco talaadadii asbuucan soo saartay soo jeedin ah inay dhalinyarada kala xaajoonayso cabashadooda si loo helo xal waaqici ah, haddana uma muuqato in daayartani dhageysanayaan codsiga dawladda ee wada hadalka ah, taas oo ay u arkaan inay xagaldaacinayso doonistooda ah in si dhaqso ah wax ka bedel togan loogu sameeyo adeegyada bulshada wadanka ee aadka u hooseeya. Inkastoo dal boqortooyeedkani uusan ku tirsanayn wadamada musuqmaasuqa la dhibtoonaya ee Afrika, haddana waxaa xukuumadda lagu eedeynayaa inay ka gaabisay kobcinta adeegyada bulshada oo hospitaliska iyo dhinaca shaqadu ugu horeyso, taasoo soo dhaweynaysa inuu dalkan ka curto kacdoon la mid ah kii maalmo ka hor dhalinyarada jinsi xukunka uga tuurtay xukuumaddii wadanka Nepal. Isla kacdoonka mid la mid ah ayaa isna sababay in la kala diro xukuumaddii Madagascar, midda oo tusaysa inaan la dhayalsan karin kacdoonada jiilka daayarta ah ee wagan ka oo sababi kara qalalaase ka ballaaran cabasho iyo banaanbax lala tacaali karo. dhalinyarada Morocco oo dhiirigelin ka helaya daayarta Nepal iyo Madagascar ayaa iyana markooda doonaya inay codkooda midaysan wax uga bedelaan maamul xumada dawladooda, tan oo sababtay qalalaasaha aan nasashada lahayn ee wagan ka oogan Maghrib.